ciidanka booliska Soomaaliland ayaa waxay caawa ka hadleen sababtii ay maanta u xidheen xogayihii arrimaha gudaha xisbiga mucaaridka UCID Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax gaashaanle sare Faysal Xiis Axmed taliyaha ciidanka dambe baarista Soomaaliland waxa uu sheegay in sababta loo xidhay Ramaax ay tahay kadib markii uu dacwad ka keenay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland isla markaana dambigaasi uu ku cadaaday waa sida uu hadalka u dhigay markuu leeyahay ma hadle markii xigtana waxaan galabta isugu nimid shirkii jiray inaan kaga hadalno sifaha sharciga ee lagu xidhay Maxamuud Cali Ramaax ciidanka booliska ayaa galabta soo xidhay waxaa lagu eedeynayaa inuu aflagaado iyo ceebeyn u geystay gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland aflagaadada iyo ceebeynta u geystay waxay ahayd isagu wuxuu yiri gudoomiyaha baarlamaanku wuxuu xulil leeyahay dad cadow ku ah Soomaaliland eegata taasina waa faldabeed taasoo ka soo dacwada gudoomiyaha baarlamaanku isagoo shakhsi ah sidoo qabaartiga ee dhawaan ayuu soo dacwooday sifii sharciga uu soo maray ciidanka booliska loo keenay kiiska waa la baaray markii kiiska ku cadaaday waxa ciidanka booliska dalbadeen in loo soo gooyo warqadda qabashada ama waxa loo yaqaan war of arrest tiibaa loo soo jaray galabta la soo qabtay soo qabaartiga 29 markii aan soo qabanay aan xidhnay Maxamuud Cali Ramaax waan tusnay waan u sheegnay in wararka lagu soo xidhay oo lagu eedeynayo article 268 iyo 385 waanu xidhay waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda iyo xiraalinta awoodda u leh qaadista kiiskaasi waxyaabahan kale uu ka hadlayo Maxamuud Cali Ramaax culimada sharciyaqaanka waxay ku tilmaamaan waxa soo kale waa nala foyd anagu ma ogin waxa kale uu sheegay ma ogin waxaanu haynaa oo kaliya waa ceebeynta iyo aflagaadada uu u geystay gudoomiyaha baarlamaanka taasaana wararka lagu soo jaray taasaana ku xidhan yahay sifa sharci ku xidhan yahay waxaana la horgeyn doonaa haddii Ilaahay ka dhigo 48 saacadood gudahood maxkamadda iyo xiraalinta awoodda u leh Muuli Ismaaciil shabakada wararka Ilays News magaalada Hargeysa.